soo dhawaada marka koobaad marka labaad waxaan rabaa shayga muhiimka ah ee Soomaalida maanta dhex taagan khaasatan barihiina bulshada ku jira oo aad iyo aad dad badani ay aragtidooda ka dhigteen in aragtidooda ka dhigto waxa la yiraahdo canshuurta Soomaaliya canshuurta dawladdu inay qaadato xaq ma u leedahay aniga si aaminsanahay xaq bay u leedahay dawladdu inay qaadato waliba canshuur badan ay qaadato sababtoo ah wadankeena resource-ka ama dhaqaalaha yaala oo dawladda soo gala si ay dawladdu ugu qabato khadamaad ama ay ugu qabato service kuma filan laakiin waxa muhiimka waxa yahay shacabka Soomaaliyeed 30 sano oo la soo dhaafay hadda 30 sano waa ka badan tahay 34 sano oo la soo dhaafay cid canshuur ka qaada maysan arkin saas daraadeed canshuurta hatta hadday yar tahay shacabku su'aalo badan oo ka keenaya waxa loo baahan yahay marka wuxuu yahay kow inay shacabku kalsooni ay helaan oo ayaga iyo dawladda dhex marta labo inay helaan canshuurtan wixii lagu qabanayay oo cad tusaale ahaan waxa la yiraahdaa Afrika waa meesha kaliya ay gaadiidku ka qurxan yihiin wadada salahan sawirka halkan yaalo kale marka fiirino waxaynu arkaynaa in gaadiid qurxan iyo waddo baaba'san ay isdhex yaalaan maalin dhaweyd waxaan agmarayay isgoyska bakaaraha wuxuu saaran yahay suuqyada geeska Afrika kuwada ugu waaweyn kamid isgoyskaas yar sidoo u jajabsan yahay sida wadada gees dhani intee burburtay hal meel oo yiriisa baabuurta iyo bajaajta isugu celiirinayso sidoo u leeyahay traffic la'aan iyo nalal kala celiya baabuurta u yahay sidoo ciriiri u yahay sidoo wasakh u yahay isma keenayso suuqaas weyn ee canshuurta laga qaado isma keenayso marka shacabku ku xaq u leeyihiin inay dood keenaan maadaama ay 30 sano canshuur bixin kalsoonina aysan haysan labo problemku wuxuu yahay dawladda wax service oo magaalada Muqdisho ka jira ma jiro tusaale ahaan haddii aad dhex marto wadada Sodonka haddaad marto meel la yiraahdo daalo waxa wasakh iyo ciid iyo daadsan iyo biyo waa laga leexanayaa wadadaas xaafadda iyo degmada ay leedahay gudoomiyaha degmada haysta ma jiro duqi magaalada ma jiro marka ma xuma in sheeg in canshuur la sameeyo laakiin canshuurta la sameeynayo waa in la helaa wixii lagu qabanayo qodobka kale aan rabo waxay tahay wadanka waxa ka jira shirkado waaweyn oo lacagtii dalka iyo dadkii gacanta ay u galeen 90% canshuurtii laga qaadi lahaa iyaga ma aragno canshuurta laga qaadayo waa in lagu dhisaa wadooyinka from Muqdisho to Kalkayo from Muqdisho to Kismaayo waa in canshuurta shirkadka waaweyn laga qaadaa aynu aragnaa inay dhisteen haddaan la helin oo laakiin lagu mashquulo qofka quutiyoomigiisa kaliya qaata taasi waxay keenaysaa cadaalad xumo iyo cadaalad darro ku jirta oo weyn marka aad u mahadsantihiin canshuurta hala dhiibo laakiin dawladda hala la xisaabtamo Muqdisho sida ay hadda tahayna caasimad kuma noqon karto sida u fool xun tahay iyo sida ay tahay iyo inagu sida aynu u aragno sheeg sawir intaan qaadno aan dhahayno magaaladiisa ay u qurxan tahay dawladduna ay geynayso canshuur fara badan inay rabto ay sii qaado aad u mahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh